بسم الله الرحمن الرحيم. دمان أصحابta qaaliga ah ee aan ku saaxiibnay pagekeena iyo youtube-ka macalin saalax insha allah qof walba meesha uu joogo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku xafido in lawada caafimaad qabo lawada fiican yahay saa anagaba alxamdulilah aan fiican nahay ayaan rajeynaa insha allah. waxaan rabnaa guushii weyneed ee farxadda badneed ee xulkeena qaranka under 17ka ciyaartooyda da-doodu ay yartahay 17 sano ee ka qeyb galaya ciyaaraha Afcom ee Kafa iyo Sakafa. insha allah qodobada aan kusoo qaadan doono ayaa waxay kala yihiin macalin Nuur Amiin oo ah macalin national team qaran ciyaartoydii hore bariisamaadkii maasha allah qaabka u ciyaaray ama systemka uu ciyaaray markaan usoo laabano guusha weyn ee xulkeena qaranka Soomaaliya alxamdulilah waa ilaahay mahadiisa allahi noo fududeeyey insha allah inta kale noo dhiman waxaan rajeynaynaa sanadkan iyo sanadaha ka dambeeyaba in Soomaaliya say u bilowda inay noqoto insha allah. wax kastan waxaa sabab u ah macnaha adoo dhaqaalo bixinaayo wax kasta bixinaayo waa gaari kartaa wax adi aad jeceshahay wax adi aad rabto marna adoo dhaqaalo bixinaayo wax kasta bixinaayo ma heli karta wax aad raadinaysa maxaa yeele wax kasta waxa waaye cinda allah waa ilaahay agtiisa ku qoran yihiin laakiin alxamdulilah marka qaarkood waxaa kulmaayo dadaalka iyo juhdiga la bixinaayo dhaqaala la bixinaayo iyo sida aad jeceshaha oo guusha ah marka insha allah waxaan rajeynaynaa sida aan jecelnahay inuu ilaahay sanadkan noo rumeeyo insha allah. waxaana ku amaanan xiriirka Soomaalida kubadda cagta ee uu hogaaminayo gudoomiye cali cabdi maxamed cali shiino iyo maamulka ku-xigeenada ee guddiga fulinta oo markasta u taagan sidii ay horumari lahaayeen ciyaarta kubadda cagta dalkeena Soomaaliya. sidaad aad dareemayso waxaad dareemaysaa in qaranka under 17ka juhdi badan la geliyey sidoo kale macalimiinta macalin Nuur Amiin iyo macalin Maxamed Bashiir. macalin Nuur Amiin waa macalin khabiir ah ciyaartooyda hore ee dalkeena soo maray ee waagii bariisamaadka laacib fiicanna ahaa isla markaasna qarankii hadda u dambeeyey oo finaalaha imaanayay abaabulkeeda iyo diyaarinteedana lahaa ayaa asina hogaaminaya ee kulankii ugu horreeyay guusha hore gaaray. sida aan wada ognahay muddo badan ayay tababar sameynayeen muddadaas tababarka ay sameynayeen waxaa ku dhiirigelinayay xilliga Soomaalida kubadda cagta maxaa yeelay la-aantooda wax ma socon karo mana la gaari lahayn. ciyaarta maanta markaan usoo laabano ka macalin ahaan maasha allah macalinka xulkeena qaranka Soomaaliya macalin Nuur Amiin systemka mashaxda u diyaarsaday ama qaabka uu u diyaarsaday ee ahaa 4-3-3 waa u shaqeysay badanaa caalamka ciyaaraha adduun macnaha ciyaaraha wadamada caalamka kooxaha caalamka qaabka ay u dheelaan macalin kasta qaab ayuu jecel yahay laakiin qaabka ugu badan waa 4-3-3. qaab kale waxaa jiro 4-2-3-1 waxaa kaloo jiro 3-4-3 waxay ku xiran tahay macalinka qaabka asiga uu ciyaartooydiis uu u haysto uu u diyaarin karo iyo falsafada asiga macalinka ku beesgaraysan uu aaminsan yahay
runtii macallinka wuxuu aad iyo aad u aaminsanaa 4-3-3 isku xirka tiimka aad ayuu u fiicnaa xulkeena qaranka Soomaaliya. waxaad dareemaysaa sida ay wada shaqeynayaan markay kubadda haystaan iyo marka laga haysto. akhrinta ciyaartan aad ay ugu fiicnaan ciyaartooyda iyo macalinka. akhrinta ciyaartooyda waxaan u leeyahay garoonka markay ku jiraan ciyaartooyda ay dhilayaan ball positionka iyo qaabka isku daboolayaan iyo qaabka ay u balaarinayaan markay kubadda haystaan. akhrinta macalinkana waxaa waaye macalinka marka uu sameynayo bedelada iyo ciyaartooyda siduu organize garaynayo ugula hadlaayo oo iskugu habeynayo. maasha allah macalin Nuur Amiin aad iyo aad isku xirkaas iyo akhrintaas iyo qaabka ciyaareedka ayaa waxaa keeni karo ama ay keenaysaa in guulal badan ay gaari karaan xulkeena qaranka dalka Soomaaliya. wax walba oo waqti la geliyo waa laga gaaraa natiijo wanaagsan. ciyaartooydan guud ahaan aad ay u fiicnaayeen xulkeena qaranka dalka Soomaaliya laga soo bilaabo goolhayaha oo safin fiican sameeyey, badbaado fiican sameeyey, kubado badan oo ay isku dayayeen inay gool ku dhaliyaan oo u diiday, difaacyada qaabkay u dhiilayaan isku soo dawoolayaan isku soo xiraayeen, qaabka balansiga ay u sameynayeen, qaabka socoshada ay usoo wada dhaqaaqayaan. taas oo kale nimanka dhexda dheelaayo xoogaa yar wax yar haysashada kubadda iyo isku dhiibista wax yar. taasna waxaan rajeynayaa insha allah waqtiyadii soo socda inay dawooli doonto. maxaa yeele wax walba waxay u baahan yihiin time ay u baahan yihiin. koox marka la diyaarinayo ama qaran marka la diyaarinayo maasha allah sida hadda waqtiga ay u heleen iyo waqti ka badan aan rajeynayna insha allah. waxaa kaloo dareemaysaa ciyaartooyda in niyaddooda aad ay u fiicneed. sida hadda kahor micnaha video aan soo dhigay aan ku sheegay niyo ahaan waxaad dareemaysaa qaabka ciyaartooyga ay u faraxsanaayeen jir ahaan iyo wejiyadooda si ay ugu faraxsanaayeen markay ay baxayeen iyo markii lagu soo dhabeeyey dalka Ethiopia ay degeen iyo ciyaarta galabta ay ciyaareen. ciyaar fiican oo aad u fiican ay dheeleen ay soo bandhigeen insha allah. waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay qarankeena Soomaaliya guul ayaan rajeynaynaa hadduu ilaahay insha allah iyo kulmada soo socdo in natiijo fiican rajeynaynaa insha allah. hadda waxaa soo hormarayso macnaha kulanka waxaa soo hormaraya Ethiopia iyo Tanzania ayadana jaanis kale waa. maxaa yeelay Ethiopia Tanzania tay soo wada ciyaaraan haddana Soomaaliya iyo Tanzania jaa-inaha waxaa natiijo iyadoo dhamaatay ay imaanayaan insha allah. waxaan rajeynaynaa insha allah xulkeena dalka Soomaaliya 17kii hore jiirkii hore maasha allah nasiibkooda finaalo uu ka dhigay. insha allah jiirkan waxaan rajeynaynaa sanadkan inuu ka dhigo sanadkii koobka ilaahay idinkiisa. guud ahaan bahweynta isboortiga jecel dalkeena Soomaaliya iyo khaasatan Soomaaliya guud ahaan meel kasta ay joogaan in xulkeena qaranka iyo isboortiga Soomaaliya laga garab istaago. maxaa yeele wax kasta waxay u baahan yihiin dhiirigelin u baahan yihiin iyo dhaqaalaha la geliyay kooxda oo da-yartaan weliba aan si fiican aan u dhiirigelino. insha allah waxaan rajeynaynaa macalin Nuur Amiin hadafkiisii ahaa Soomaaliya guul oo farxad oo guul ah ayaan rajeynaynaa. ilaahay ka baryayna subxaanahu casa wajalla. waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.